السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkani waa Daalacan Media. Daawadayaal meel kasoo joogtiin waxaan idin leenahay kulan wanaagsan. afayeenka ciidanka ilaalada xuduudaha ee dalka Sacuudiga Colonel Masfar bin Qasim waxa uu sheegay in gacanta ay ku dhigeen 51 eedeysane oo ka soo kala jeeda dalalka Soomaaliya, Itoobiya, Yemen iyo Sacuudiga kuwaas oo xilliyo kala duwan lagu qabtay xuduudaha koonfureed ee dalkaasi. afayeenka waxa uu tilmaamay in dadkaasi laga soo kala qabtay iyagoo xashiish iyo qaad dhanka dhulka ah iyo badda ka soo gelin lahaa xuduudda Sacuudiga ay la leedahay Yemen. dhanka kale afayeenka ciidanka ilaalada xuduudaha ee dalka Sacuudiga Colonel Masfar bin Qasim waxa uu tilmaamay in 51gaas eedeysane ay ku qabteen xuduudka ay kala ahaayeen 34 Itoobiyaan ah, 10 Yemeniyiin ah, 4 Soomaali ah iyo sidoo kale 3 Sacuudiyaan ah. dhanka kale wargeyska Ishraaf al-Caalam oo warkan aan ka soo xiganay waxa uu qoray in eedeysanayaashaasi lagu qabtay xashiish culeyskiisa uu dhan yahay 116 kilogram iyo sidoo kale qaad culeyskiisa lagu sheegay inuu dhamaa 7516 kilogram. si kastaba ha ahaatee maahan markii ugu horeysay ee ciidanka ilaalada xuduudaha Sacuudiga ay gacanta ku dhigaan dad doonayay in si dhuumaaleysi ah dalkaasi ay ku galiyaan waxyaabaha maanka dooriya.